waxaa warmutiyeed laga soo saaray shir 10kii maalmood ee u dambeeyay ka socday buurta gacan libaax shirkaasoo ay ku shirayeen isla markaana ayagoo ay kaga tashanayeen mid kamid ah beelaha dega Somaliland waxaana warmutiyeedkaasi warbaahinta u akhriyay oday Xasan Xuseen Farax shirweynaha beelaha garxajis ee tol wanaagsan laba ee buurta gacan libaax oo bilaabmay 23kii dhamaadayna maanta ay bisha 7/1/2018 waa murtiyeedkii shirweynaha beelaha garxajis ka soo baxay ugu horeyn shirweynaha beelaha garxajis ujeedadiisu ma aha in qarannimada Somaliland lagu dumiyo ee waa in qarannimada Somaliland ee majalihii toosnaa laga duway lagu toosiyo laguna suuliyo cadaalad darrada bareedka ah ee lagu kala gudbiyay laguna kala qaybiyay beelihii reer Somaliland ee walaalaha ah ee dalka iyo dawladnimadu ka dhaxaysay waxaynu ognahay in shirkii nabadeynta ee aayaka tashiga ah ee beelaha Somaliland ku yeesheen magaalada Boorame si cad loogu heshiiyay in maamulka dawladnimo iyo khayraadka dalka Somaliland loo signaado hase yeeshee waxaan cidna ka qarsoonayn in maamuladii kala dambeeyay ay si cad u duween oo meesha uga saareen cadaaladii sinaantii iyo wada lahaanshihii Somaliland ku soo caanamashay taasoo cid gaar ah si gaar ah u yeelatay ugana faa'iideysato dawladnimadii iyo khayraadkii dalkaba waxa marxaati madoon ah in maamuladii dalka u kala dambeeyay ay si badheer ah u baalmareen ugana tunteen ku dhaqankii dastuurka iyo xeerarkii sharci ee kale ee dalka u yaalay ayagoo golayaashii sharci dejinta iyo garsoorkiiba siday doonayaan u adeegsaday ama u baalmaray doorashooyinkii kala duwanaa ee intii ay hoggaanka hayeen dalka ka dhacayna si qaldan u maamulay qof kasta ama beel kasta oo reer Somaliland ah oo lahajaha ka haysa dalkan Somaliland wuxuu marxaati ka yahay in khayraadkii kala duwanaa ee dalkanu lahaa ay cid gaar ah oo gashan shaarka dawladda Somaliland ay boobtay oo si gaar ah uga faa'iideysatay ayagoo adeegsanaya shirkado shisheeye oo sahami shidaal lagu sheegay ayadoo aan la marin golayaashii sharci dejinta ee ansixintooda xaq u lahaa isla markaana dadweynihii ku noolaa deegaamadaas loo geystay dhibaatooyin caburin iyo cagajuglayn waxaynu ognahay in ilihii dhaqaalaha ee dalku lahaa sida dekada berbera garoonka diyaaradaha ee berbera lagu wareejiyay shirkado iyo dawlado shisheeye ayadoo aan heshiiskooda loo marin wadadii sharciga ahayd ee dastuurku dalku qeexayay ee dad gaar ah si gaar ah uga faa'iideystay isla markaana aan dadweynaha reer Somaliland loo soo bandhigin lagana qancin faa'iidada ugu jirta iyo waxa loogu bedelay ayadoo ay intaas dheer tahay oo ay cad tahay khatarta dagaal ee kaga iman karta dalka iyo dadka reer Somaliland kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka dhex taagan dawladaha Carabeed ee aynu dariska nahay ee qaarkood dhulkaas lagu wareejiyay waxaan cidna ka qarsoonayn in wada lahaanshihii Somaliland ee soo jireenka ahaa lagu bedelay beelo isu bahaystay boobka Somaliland kuwaasoo heshiis beelaysan oo aanay cidna ka qarin ku galay inay dawladnimada iyo khayraadka dalka si gaar ah u wada yeeshaan ugana faa'iideystaan haddaba shirweynaha beelaha beelweynta garxajis asagoo ka duulaya dhammaan qodobada dhaliilaha ah ee kor ku xusan ee maanta dalka ka jira wuxuu soo saaray go'aamadan hoos ku xusan oo loogu talagalay saxaafadda ama warmurtiyeedkii shirka ah qodobka koowaad shirweynaha beelaha garxajis ee tol wanaagsan laba ee ku soo xirmay maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bishii 7/2018 buurta gacan libaax wuxuu cadeynayaa in si buuxda shirweynuhu la isula qaatay midnimo buuxda oo garxajis labo beelweynta garxajis waxay cadeymo buuxa u haysaa in madaxda sare ee dawladda iyo dhammaan qaab dhismeedka dawladda ee madaxweynuhu soo dhisay markii la doortay sida golaha wasiirada dhiijiyada agaasimo waaxeeyada madaxda hay'adaha madaxa bannaan hoggaamada ciidamada kala duwan iyo saraakiisha ciidamada iyo dhammaan shaqaalaha dawladda 60% ay ka soo jeedaan
ama ka tirsan yihiin beelaha isu bahaystay xaqdarrada taasoo ah xaalad aan u cuntami karin beelweynta garxajis iyo beelaha kale ee reer Somaliland midna sidaa awgeed waxaanu soo jeedinaynaa in si degdeg ah oo aan daahir lahayn loo saxo loona bedelo cadaalad darradaas oo ah mid aanay Somaliland ku sii jiri karin qodobka saddexaad beelweynta garxajis waxay ku heshiisay inay tala kula noqoto dhammaan beelaha Somaliland si loo gaaro ama loo helo Somaliland la wada leeyahay hadii ilaahay ka dhigo qodobka afraad beelweynta garxajis waxa uu cadaatay in khayraadkii dalka maalgashigii dibadda kaalmooyinkii caalamiga ahaa iyo dhammaan qandaraasyadii dalka aan loo sinayn oo si gaar ahna loogu xidhay dad gaar ah taasoo aan waafaqsanayn dastuurka dalka abuurtayna kala sarrayn dhaqaale iyo in hantidii dalka gacanta loo geliyey dad gaar ah qodobka shanaad shirweynaha beelaha garxajis wuxuu madaxweynaha u soo jeedinayaa kuna adkaynayaa in dastuurka qaranka la furo si beelaha darafyada Somaliland ee cabashadoodu inta badan soo noqnoqotay iyo beelaha kaleba xuquuqdooda dastuuriga ah ay u helaan awoodda hogaaminta dalkana loogu sinaado qodobka lixaad waxaa cad inay isku milmeen saddexdii waaxood ee qaab dhismeedka qaranku lahaa sida waaxda fulinta sharci dejinta iyo garsoorka sidaa awgeed beelweynta garxajis waxay ku baaqaysaa in dib loogu soo noqdo ku dhaqanka dastuurka dalka saddexda waaxoodna kala madax bannaanaadaan qodobka toddobaad beelweynta garxajis waxay dhiiggeeda iyo dhuuxeedaba u shubtay jiritaanka madax bannaanida dalka Somaliland si loo helo dal la wada leeyahay ayadoo tiro ka badan 10,000 oo geesiyaal ah ku weyday tiro kale oo intaa ka badanna kaga naafowday sidaa awgeed beelweynta garxajis waxay digniin culus u diraysaa cid kasta oo madaxda qaranka ka tirsan oo beeshan ku eedaysa qarannimo dumis ama qaran dumis ku eedaysa qodobka 8aad ee ugu dambeeya bayaankan ama warmurtiyeedkan beelweynta reer Somaliland bulshada reer Somaliland ee nabadda jecel waxay markhaati ka yihiin in dagaalka 2 sano ka soconayay deegaanka degmada Ceelaf Weyn ilaa haddana socda ee u dhaxeeya labada beelood ee walaalaha ah aanay dhex ka ahayn dawladda Somaliland ee maanta jirta iyo dawladdii ka horreysay midkoodna sidaa awgeed ugu horreyn beelweynta garxajis waxay baaq nabadeed u diraysaa labada beelood ee dirirtu ka dhaxaysa ee walaalaha ah ayagoo leh aqligiinu ha garto dhibaatada guryihiina taalla madaxweynahana waxaanu ku adkaynaynaa inuu ku dhiirado soo afjarista si degdega colaadaas asagoo adeegsanaya awoodda dawladnimo iyo cadaalad iyo inuu wax ka qabto dambiilayaasha dagaalkaas hurinaya ee isugu jira gacan ku dhiiglayaal iyo siyaasiyiinta xukuumaddiisa ka tirsan si ay u fududaato in la isugu yimaado wada hadal nabadeed xalna loo gaadho loogana badbaado in dagaalkaasu deegaano kale ku fido wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh